wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland mudane Yuusuf Maxamed ayaa maanta 2 milyan oo dollar waxa uu ku wareejiyay guddida komishanka doorashooyinka Somaliland. Lacagtan ayaa waxa ay qayb ka tahay kharashka ku bixi doona doorashada soo socota ee baarlamaanka iyo golayaasha deegaanka Somaliland. wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi ayaa lacagta ku wareejiyay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland mudane Cabdulqaadir Iimaan Warsame kulan ka qabsoomay wasaaradda horumarinta maaliyadda ee magaalada Hargeysa. waxaana halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Somaliland mudane Yuusuf Maxamed Cabdi iyo gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Somaliland mudane Cabdulqaadir Iimaan Warsame. waxaana ka mid ahaa hadaladoodii oo bishu tahay 10 bisha shanaad sanadka 2018 aniga oo ku hadlaya afka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland oo marar badan ballan qaaday in ay ka go'an tahay xukuumadda uu hormoodka ka yahay in la qabsoonto doorashooyinkii golaha wakiilada iyo dowladaha hoose ee noo astaysnaa inaynu qabanno sanadka 2019 bisha saddexaad haddii alla idmo. ballanqaadkii qaybtii hore ayaan maanta fulinaynaa oo ah xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland saamigii kaga soo hagaagay ee qabsoomida doorashada dhinaca lacagta in lacagta qaybtii hore ay diyaar naga tahay qaybtaas oo ah 440 oo u dhiganta 2 milyan oo dollar taas oo maanta si rasmi ah aan ugu wareejin doono gudoomiyaha guddida doorashooyinka mudane Cabdulqaadir Iimaan haddii alla idmana baaqiga harsan ee lacagta ah oo ah 2 milyan iyo 500 in iyadana sida ugu dhaqsiyaha badan leh aan u bixin doono. wadarta guud ee laga rabay in ay ka qayb qaataan ka xukuumadahan waa 4 milyan iyo 500 taas oo ku jirta miisaaniyadda qaranka. markaa maanta haddii alla idmo arrintaas aan doonayna si rasmi ah inaanu ma garanaysa u shaacino dhammaan jamhuuriyadda Somaliland dadkeedana u sheegno iyo xisaabta qaranka iyo qaaran bixiyayaasha dalalka jaarka ah iyo daneeyayaasha dimuqraadiyadda jamhuuriyadda Somaliland. waxaan saaka isugu nimi shaqooyinkeenii caadiga ahaa ee komishanku uu qaban jiray qaranka uu hayay waa qayb ka mid ah qaybtaas oo ah shaqadii laga doonayay in maxayde la bilaabo oo inoo socotay ayaan maanta waxaanu ku soo booqanay wasiirka xafiiskiisa inaanu ka gudoono jeeg 2 milyan oo dollar ah kaas oo ah ballanqaadkii iyo ka qaybgalkii ay xukuumadda Somaliland kaga qaybgalaysay doorashada soo socota. jeegaasoo maanta oo bishu tahay 10 May ama bishii shanaad 2018 aynu ku la wareegayno accountka ay komishanka doorashooyinka qaranku ku leeyihiin bankiga dhaxana lagu shubayo halkaas oo laga hawlgeli doono hawlgalkuna ka bilaabmi doono. waa Mustafa Ahmed Samakaab wararka warbaahinta Star TV magaalada Hargeysa.